Waa barnaamijkii laba magaalo waliba xalqadii afraad waxaana ku soo qaadan doonaa Bangkok iyo Lagos. Bangkok waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn uguna dadka badan boqortooyada Thailand, waxaana ku nool dad ku dhow 10 milyan. Waxay dhacdaa webiga Chao Phraya ee ku dhamaada ama biyihiisu ku shumaan gacanka Thailand, waana mid ka mid ah Bangkok labada meel ee kaliya ee ismaamulka ah, waxayna ka kooban tahay ilaa 50 degmo. 35 ka mid ahna waxay dhacaan dhanka webiga Chao Phraya. Marka la eego luqadda Thai-ga, wuxuu magaca magaaladan oo dhammaystiran noqonayaa sida tan, waxayna magaaladan rikoodha ee Guinness World Records ku gashay inay tahay magaalada ugu magaca dheer. Magaceeda ah Bangkok ee maanta loo yaqaano dadka reer Thailand maysa aqoon xitaa kolka ay noqotay caasimadda ee 1782. Magaaladan intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1990 waxay ahayd mid hogaamisa magaalooyinka ee dhaca koonfurta bari qaaradda Aasiya, waxayna ahayd mid maalgashiga ugu badan hintisa. Shirkadaha ajnabiga ee ku badan magaaladan waxay ka dhigeen awood gobol gaar ahaan marka la eego maalgashiga, ganacsiga, siyaasadda iyo dhaqanka, waxayna 2009 noqotay magaalada labaad ee ugu qaalisan xagga maciishada, waxaana ka horreeyay oo kaliya Singapore. Waxaa laga helaa magaaladan suuqa ugu weyn caalamka ee toddobaadlaha oo lagu magacaabo Chhatrapati, waxaana la furaa habeenka Sabtida soo galayo ilaa Axadda albaabadiisa lama xiro, waxaana maalintii booqdaan 200 ilaa 300 kun oo qof. Waxay cilmi baarayaal badan sheegaan in magaalada levelka biyuhu ka soo maraan 2 ilaa 2.5 sentimitir sanad walba, waxayna xusaan in mustaqbalka dhow khatar ugu jirto Bangkok inay qarqoonto ama biyuhu qariyaan, waana mid la moodo magaalada Venice ee dalka Talyaaniga. Magaaladan waxaa ku badan macaabidda, intooda badanna waxaa la hirgeliyay yaaqadii qarnigii 18aad. Sidaas daraadeed waxaa laga helaa sanadka ugu weyn ee dahab loona dhisay aasaasaha diinta Buddhism-ka ee lagu magacaabo Buddha, waxaana lacagta ku baxday sanadkan lagu sheegaa 250 milyan oo ruux. Ciidamada dabdamiska ee magaaladan shaqada dabdaminta waxa uu sii dheer shaqo kale oo adag tahay inay dadka intooda badan ku dhiiradaan. Ciidanka dabdamiska ee Bangkok kaliya lama waco marka uu dab kaco, sidoo kale waxaa laga wacaa goob walba oo lagu arko mas. Waajibaadka saaranna waxaa ka mid ah inay qabtaan masaska lagu arko magaalada, waxaana shaqada masqabada sanadkan ay ku jirno kaliya oo la soo ogeysiiyay ciidanka dabdamiska in ka badan 22 kun oo jeer. Magaaladan waa mid aad u kulul, gaar ahaan bilaha March, April iyo May, waxayna qabowdaa bisha 11 ilaa bisha 2. Magaaladan waxaa ka jira sharciyo oo ay tahay inuu ka digtoonaado qofka ku cusub, waxaana ciqaab lagu mudan karaa inuu qofku gurigiisa ka soo baxo isagoo aan wadan dharka hoosgashiga, in xitaa gaariga oo wado isagoo feero qaba, waana inuu ixtiraamaa lacagta dalkan maadaama uu ku sawiran yahay boqorka dalkan. Lagos waa magaalada ugu weyn Nigeria uguna dadka badan galbeedka Afrika iyo xitaa guud ahaan Afrika, waxayna noqotay magaalada ugu qadiimka badan Afrika dad ahaan, waxaana lagu sheegaa dadka degan magaaladan 13 milyan, balse marka lagu daro dadka degan hareeraha iyo tuulooyinka magaaladan tiradu waxay noqonaysaa 21 milyan. Waa magaalo qaabili karta dad kala badan oo aan ku midaysnayn dhaqan, af iyo diin, waxayna soo dhaweysaa faqiir iyo taajirba. Waxayna dhacdaa isla gobolka magaceeda sida ee Lagos, waxayna si rasmi ah caasimadda Nigeria u noqotay kadib markii ay Nigeria xornimadeeda qaadatay 1960, waxayna xilkaas sii hayday ilaa 1991 ilaa markaas ay kala wareegtay Abuja taajka caasimadnimo. Laakiin Lagos waa caasimadda dhaqaalaha ee dalka Nigeria, waxaana loo tixgeliyaa inay tahay albaabka laga galo galbeedka Afrika. Marka la eego dhaqaalaha, Lagos waa mid aysan ku soo dhaweyn magaalooyinka kale ee galbeedka Afrika. 80% oo ah waxyaabaha dibadda laga keeno ee Nigeria loo dhoofiyo ayay kasbataa magaaladan, waxaana magaaladan degan ninka ugu taajirsan Afrika ee Aliko Dangote, waana magaalada Afrikaanka ee ugu qanisan
tirsan Afrika, waxaana ka horeeya oo kaliya Johannesburg, Cape Town iyo Qaahira. Sida guudna magaaladan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah Lagos-ta dhulka weyn iyo Lagos-ta jasiiradda. Lagos-ta weyn ayaa dad badan isla markaana dhaqdhaqaaq ganacsigu ku badan yahay. Buundada lagu magacaabo Ibrahim Babangida oo isku xirta labadan dhinac waa buundada ugu dheer Afrika. Magaaladan waa xarunta dhaqanka iyo madadaalada Afrika, waxaana degan fanaaniinta ugu waaweyn Nigeria ee dadka caanka ah ee dadka ka qosliya. Waa xarunta 20 shirkadood oo soo saara aflaanta, waxaana ugu caansan shirkadda laga yaabo inay intiina badan taqaanaan ee Nollywood. Magaaladan habeenkeeda ay duwan yihiin, waxayna dadku xiiseeyaan waqtiga habeenkii, waxaana siyaado dhaqdhaqaaqa goobaha la isugu yimaado. Waxaana jidadka magaalada lagu cuntada la yiraahdo suya, waxaana maalin iyo habeenba lagu arkaa ciriiriga. Waxaana ku yaalo dhismaha ugu dheer galbeedka Afrika oo lagu magacaabo Nikko.